hadalkan ka soo yeedhay isuduwaha HIV/AIDS-ka ee gobolka Awdal Cabdulqaadir Shaashka waxa uu daahfurayaa cabsi hor leh oo ku saabsan finitaanka xanuunkaas oo gobolkan Awdal kaga imanaysa dhinaca dalka Djibouti. isuduwu waxa uu carabka ku dhuftay inay jiraan haween ka mid ah dadka la nool xanuunka HIV/AIDS isla markaana haysta waraaqaha caddaynta ee ay dawada kaga qaadanayeen gudaha dalkaasi Djibouti oo ay dawladda Djibouti soo raaftay isla markaana ay ku soo daadisay deegaanka Lowyacado. sidaana waxa uu carabka ku dhuftay mar uu ka hadlayay aqoon isweydaarsi lagaga arrinsanayay faafidda xanuunka HIV/AIDS ee magaalada Boorama. 14 bishii labaad bishii afraad 14 waxaan joognay Lowyacado waa xudunta isku xidhay Djibouti iyo Awdal iyo Sare waxaan ku soo aragnay meesha wax mucjiso ah saameynaya magaaladeena iyo gebi ahaanba Somaliland ama dhulka dadka Soomaaliya ku hadlay degan yihiin ee Geeska Afrika. meesha waxa jiray in Djiboutiyaanku ay tallaabo qaadeen iyadoo aan oran karo tallaabadaasi kuma wanaagsan xuquuqda aadamiga in saa loo dhaqmay dadka Djibouti degan ee qaata dawada HIV-ga iyagoo kala soocaynin ayaa waxay galeen dumarkan jirkooda ka ganacsada meelaha degan yihiin ee Djibouti kaartiyada bay galeen waxay soo ururiyeen dhammaanba wixii ay ku arkeen haween dhulka degan waxay weydiiyeen warqadahoogii waa ku yiri wax warqad haystay dadkaas waxay u badan yihiin original ama Somaliland ka tagay ama Ethiopia ka tagay ka bacdi waxa uu soo daadiyay Lowyacado. maalintan waan la kulanay laakiin waa program socda oo wiigiiba marba la keenaa dadkaasi mixnad shaqo waxay yaqaaneen inay jirka iibiyaan waxa kaloo jira dadka abooleynayay iyo kuwii kale kontrabanka qaadayay ayaa iyaguna jooga meesha oo aan aqoon u lahayn xanuunka HIV-ga. ninban mid buu ku dul dhacay dadkii baan survey u sameynay kormeerka wali waxa naga caawiyay ururkan AWSG in gaari karno halka iyo gaariga oo subuura nagu caawisa. marka meesha waxa yaalo waxay ahayd mushkilad gabdhaha si saga suwarka iska halka degani markii aan wareysanay waxay noo sheegeen in marka Lowyacado lagu soo shubo qaarkood ay Saylac degan yihiin qaarkoodna ay Boorama u soo gudbaan way degan yihiin waxayna sitaan warqadihii ART-ga ay dawladda ku qaadanayeen ee Djibouti baa bedel oo warqadii markii bishii mar gaadhaba ay dawladda doonayeen. si kastaba ha ahaatee hadalkan ayaa waxa uu noqonayaa mid cabsi iyo yaxya hor leh ku beeraya dadka ku dhaqan gobolka Awdal oo markii horeba u taag u la'aa faafitaanka xanuunkaas. Cabdul Cali Yuusuf, shabakadda wararka Local News, magaalada Boorama.